بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الثالث في اللغة العربية وعشر كأني صدحات عشر ذي نوع سعودي أرض ذي سديدات كه عشر كي صدحات أو كسب سنة وحدة الشناد عشر ذي عشر كي صدحات أي منطقة هنا وهجرة غير الشرعية وحلو يقانو tagitaan aan sifo sharci ah oo qawaaniinta adduunka waafaqsan iyo sharciga islaamkaba waafaqsan si aan ahayn uu ku tago qofku wadankiisa uu kaga baxo ayaynu saaka ka hadli doonaa. waxaanu ku baran doonaa casharka oo aad horay u sii fahamtaa macna hijra waxa loola jeedo tagitaankan maxaa loola jeedaa waad ka baran doontaa insha Allah. waxaad kaloo ka baran doontaa noocyada tagitaanku oo wadanku qofku wadankii ka baxo oo meel kale aado intee nooc bay noqon karaa tagitaankaasi waa in si sharci ah ku tagtid iyo in si qeyr sharci ah ku tagtid bay noqon doontaa iyadaasaynu sharxaynaa. iyo waxaad kaloo ka baran doontaa casharkeena waa maxay sababaha ku keena qofka inuu tago. waxaan kaloo ka baran doonaa marka si aad iskaga ilaalisid sababaha qofku uu ku tago baad si cilmiya u baran doontaa. waxaa kaloo ka baran doontaa waxa la yiraahdo dhibaatooyinka ay leedahay oo qofka markii uu tago oo uu wadankiisa ka baxo xagga dhibaatooyinka ka qabsada maxay yihiin ama jidka markii uu sii socdo waa maxay dhibaatooyinka qabsada qofka inaad u xog haysid oo aad ogaatid. waxaa kaloo ka baran doontaa waa maxay xalka loo haya miyaan qofku wax kaleba uusan samayn karin inta uu wadankiisa joogo. arrimahaasaynu ka hadli doonaa insha Allah. kunu maci wala takunu khalfi ila socda marka insha Allah si kooban baynu u sheegi doonaa. waxaan jeclahay sida ugu kooban inaad idinku soo gudbiyo aadna u fahmi doontaan insha Allah. aynu wada socono ciwaankeena koowaad ee casharka waa tajannub أعمال الهجرة إلى الغرب. إن لقى فقاده أعمال الهجرة تجيتانك يوحيالها كينا يقفك إنه ودن كيسي كتغو إلى الغرب وأبحه خارج كإيه ميلان ودن كيسي هين حينكو أصطيني وإنه أنقانا محي مقع هوسي آخري التهريب تهريب بينه أنقانا سائلة سعمركا يرغب الإنسان wuxuu jecel yahay qofku bitabiicatihi albashariya bini'aadanimadiisa sidiisa caadiga ah qofku wuxuu iska jecel yahay al-intiqaal wa tirxaal tagitaanka iyo socodka dadku waa jecel yihiin oo qofku inuu halkan ka tago meel kale uu tago waa jecel yahay qofku waa tabiica ilaahay ku abuuray min makaanin ilaa aakhar inuu halka ka tago uu joogo oo meel kale aado iska daa wax kale xitaa markii si kale loo qaybinayo baa tagitaanka mid wadanka gudihiisa baa jira dadku waa jecel yihiin waa iska tarwiix nafsi oo qofku inuu wadankiisa ku socdo ama mar miyiga uu u baxo arrimaha way jecel yihiin. sacyan lil bahth dadka taga maxay raadiyaan halkaas waxaynu baranaynaa maxay raadiyaan dadka taga can makaanin akthara jawda waxay raadiyaan meel ka fiican xagga waxtarka iyo tayada uga fiican meesha uu joogo isagoo saddex meelood ka eegaya qofku waxa uu wadankiisa uga tago saddex arrimood buu raadinayaa mid afraad ma jirto bal adigu fiir halka waa ila keenaysaa saddex arrimood ayaa qofku raadinayaa markuu wadankiisa ka tagayo lil aish nolol buu raadinayaa meel uu ku noolaado oo si fiican ugu noolaan karo wax ku baran karo caafimaadkiisa ma taqaan maxaa kor dhinac walba uga wanaagsan ayuu raadinayaa. والسكن sidoo kale wuxuu raadinayaa deegaan wanaagsan meel wanaagsan oo si fiican u deganaado. wala amni wuxuu raadinayaa amni ayuu raadinayaa badbaado ayuu qofku raadinayaa. anwaa'ul hijra noocyada tagiddu ay u qaybsanto halkaana ila fiiri noocyada tagiddu u qaybsanto inuu wadankiisa qofku ka baxo intee qaab buu ku tagaa qofku. هجرة شرعية هجرة
غير شرعية أشخاص وان كحذفي ما قاعد هذا وقصة نقطة كمبيوتر كايسرامي أشخاص هجرة شرعية قاب شرعية إنه قفك كتجاه أو هايسته ودنك كلوحي وكو آدي لها وقرن أيه سببته وقصة عضه ما تقعنا وحبا أي هالكاس وعاديهن قفك إنه كتجاه أما هجرة غير شرعية قاب آن فعلين وشرعية هين إنه كتجاه قفكو ووحو كدونا يبقى سمركا قرنين hebel baa tagay isaguna iska tagayo ama ma taqaana maxaa ku raad wadanka waa sharcigiisa uu san haysan oo iska tago labadaas yood bay noqon kartaa hijra sharciya mid koowaad hadaynu sharaxno ardadayda tilka hijra waa tagitaanka allati tasir taasoo ku soconaysa wifqa al-ijraa'at wal qawanin min qibal al-jihat ar-rasmiyya wa duna ay mukhalafatin laha فتلك الهجرة واتجيتانك التي تصير تاسو كسعنيسة وفق الإجراءات تلابوين كسوا فقصا الإجراءات تلابوين كسوا فقصا والقوانين من قبل الجهات الرسمية ذاتك كشقله أو ودنك سوقليد ديسا بحيد ديسا متقانا محاكرة دغدغاقيسا ذاتك لا صعد أو ودنك ومضوه ودنك ودوام ما مشان ذاتكاس wixii qofku ma taqaanaa ay u dajiyeen inuu waafaqsan yahay oo si sax ah wadanka ku galay waduuna ay mukhalafatin laha wax khilaafana uusan jirin oo uusan khilaafin ijraa'aadkii loogu talagalay baa la yiraahdaa hijra sharciya hijra ghayru sharciya maxaa la yiraahdaa hiya amaliyatu intiqaal al-afraad wal jama'aat wa inay afraada yani dadka qof ay u tagaan والجماعات أما كوح أي ضدك أتجان وضدك أجبحان بين الدول أين أكل السعودان دولتها يأدون كما تغنى قارديسا بطريقة غير قانونية قابك السعودان ويهي قاب عن قانون كوضنك وافق سنين إسكسو قلان تاس أي حليرة هجرة غير شرعية مصطلحات وأسماء للهجرة غير شرعية magacyada loo yaqaano oo caalamiga ah ee tagitaanka غير sharciga ah magacyo loo yaqaan baa jirta oo ma taqaana lagu asteeyay oo adduunku isku fahmo oo loo yaqaano tahriibka ama hijrada غير sharciga magacyadaas maskaxdaada maxaad ku soo xaadirin kartaa oo aad hadeer ka garan kartaa magacyadaas inay jiraan magac ama laba soo qabo aad u aqoon lahayd tahriibka adigoo carabi ahaan ugu dhawaaqaya magacyadaas aan isla fiirino magaca koowaad waxa loo yaqaan al-hijra sirriya qaab hoose oo lagu baxay oo qofkan si qarsoodiyo ku baxay oo ma taqaana aan dadkoodii ogeyn waalidiintiis aysan ogeyn ma taqaana dawladdu aysan ogeyn iyo cid qaabilsan arinta iskaba dhaaf waa laga celin lahaa Soomaha marka waa qaab qarsoodiya ayuu qofku ku baxay marka waxa loo yaqaan al-hijra as-sirriya akalo loo yaqaan al-hijra ghayr al-qanuniyya hijro tagitaan aan waafaqsanayn sharciga iyo qawaaniinta bini aadamka aan waafaqsanayn uu iska tagi magaca saddexaad baa loo yaqaan al-hijra ghayr sharciyya waa tagitaan aan sharci ahayn waxa kale loo yaqaan al-hijra غير النظامية وتجيتان عن نظام أهين قاب عن نظام أهين بوكو بحر انتاس أردن واللو ذا يقانا مدو البوحوية ومصطلحاتك أما إريادا مقعيدا ولا يسكو فهمي كره وأدونكو ويقانو قفك متقانا تهريبك كو بحي دوافع الهجرة مركادو ذوات فهمي كرتا دي عربي كو قدل شاكي ستوي كو يرادان هجرة سرية أما غير شرعية إسكجي ميشا أو حلا جران كره ومقعيدي يريدي لو يقاني تهريبك عنوان كان كلا وحوية دوافع الهجرة غير شرعية وعنوان آد مهم إنه كوه عنوان كان سيجارة أوفيرية أرضي آد مهم إنه كويه هاي سي علمية بعد فهميسا سببها كينا محيهين إنay dadku tagaan nafsiyan waad isweydiinaysaa qof kasta oo aqli leh waa isweydiinaya
maxay dadku wadankooda uga tagaan marka sababaha keeni kara si fiican u baro hadhow ciwaankan waxa lagu qori karaa waxa lagu oran karaa sheeg sababaha keena asbaab alhijra ghayru shar'iyya sababaha keena inay dadku tagaan sheeg dhowr qodob ka sheeg baa lagu dhihi karaa sidaan hadii lagu qoro dawaafi'ul hijra ghayru shar'iyya iyadana waa sax maxaa ku riixa qofka oo dadka ku keena inay ka baxaan dalkooda hooyo sababta koowaad waa mid aad soo dhaweynaysid ad-dawaafi' al-iqtisaadiyya dhaqaale la'aan inuu qofku ma taqaanaa uusan wadankiisa wax dhaqaala ku haysan oo uusan wadanka waxba ku haysan waa ay keentaa oo aad arkaysid dhalinyartii wax soo baratay dadkii wax yaqaanay oo darbiyada iska fadhiya inaysan jirin ila dhaqaale oo dalka wax uga soo baxaan oo tayeysan wixii dhaqaale ku saabsan oo qofka ama isaga ahaan qusaysan markaa ama wadanka ka jirta waa sabab keeni karta dhaqaale la'aantu inay dadku baxaan oo ka cararaan wadanka iska tagaan ad-dawaafi' al-iqtisaadiyya dhaqaale la'aan sabab ay keenayso waa ku imaan kartaa inay dadku baxaan ad-dawaafi' al-bi'iyya xagga bi'ada iyo deegaanka bi'a waa maxay af Soomaali waxa ku qorataa waxa tiraahdaa deegaan al-bi'a waa dawaafic ama dhibaatooyin ka jira deegaanka waa ka xayn kartaa qofka waxaaba ka jira ma taqaanaa dagaalo waxaaba ka jira cimilo xumo oo cimiladeeda waxay ku sharxeen meeshaas dadkii tarbiyiinta ama luqada carabiga waxay ku sharxeen meesha manaakheeda yani baaxun oo liita waa meel aad u kulayl badan waa meel ma taqaanaa deegaankii iska wasakhaysan yahay waa meel dhirtii la jaray waa meel deegaanku uu ibir yahay dadka way keenaysaa inay ka tagaan oo ay cararaan marka deegaanku hadduu xumaado waa sabab keeni karta inay dadku ina ka baxaan oo ay ka tagaan wadanka midda saddexaad waxa weeye عدم وجود فرص عملية شغلة إني ودنك كتيرتو هذا محاكم معناه كرتا البطالة وشغلة آن بكتيرته عدم وجود فرص إن لهلين وح فرصة عملية أو شقة كافية كفلا للشباب للين يرتا إني ويان وح شقة يمتقانا محاكم ميل أي أردقاقان iyo shaqo abuuris in ma taqaanaa ay waayaan fursado shaqo oo ay dhici karto inuu aad wax u yaqaano ay dhici karto inuu dugsiga sare ka baxay ay dhici karto inuu jaamacada ka baxay wax kasta ay dhici karaan oo ay dhici karto inuu ma taqaanaa xoololey ahaayo baadiyaha uu joogay xoolahoodii ay baaba'een furas uu ku helo qofku amaliya shaqo hadii uu waayo waa sabab keenta inuu qofkaasi iskaga cararo wadanka الصراعات المسلحة وكوا ugu daran maleeshiyad iyo dagaalo inay wadanka ka jiraan oo ay bi'ada iyo deegaanka kharibayaan oo reero walba ay koox yar ciidana samaystaan oo lagdan uu ka jiro dagaal ama mid marka diin ku hubaysan ha ahaado ama kuwa kale ha ahaadeene hadii dagaal ay meesha qabsadaan waa sabab keenta inay dadku baxaan oo ay ka cararaan qodobadaas marka sidooda u fiiri ardayow الدوافع الاقتصادية الدوافع البيئية عدم وجود فرص عملية كافية للشباب الصراعات المسلحة وضبطها كسوتوس وصفعا وآخر ماش عيوب الهجرة وامحي دباتوينك كردشا أدو نفس هذا اسويدي maxaa ku dhacay dhalinyartii tagay mise baraare iyo barwaaqo iyo meel loo salaxay bay la kulmeen bal adigu fiiriyo dib u fiiri maxaad ka dareentaa xaafadiina hadii qof ka tagay saaxiibada ay cid tagtay maxaad ka dareentaa maxaad ka maqashaa mar walba haduu ku soo waco inta uu sii socday ama uu Liibiya ku xirnaa ama uu meel kale tagay ama xagga markuu tagay uu waayay sharciyadii wadanka uu san waxba haysan uu cayr qaadanaya meel ku jiray waxbarashadiisii waqtigii uu dhaafay wax badan ay soo baalkeeyeen maxaad ka fahmi kartaa maxaa ka dhashay dadka tagitaankooda ay ma taqaanaa maxaa ku wadankii laga baxo waxyaalaha ka dhashaa maxay yihiin hal meel oo kaliya hadhowdii ha ka fiirin qof tagay
muddo maqnaa hadhow xoogaa shaqaa helay intaa kaliya ma dadku ma wada heline waxa weeye waa inaad si fiican u fiirisaa ila taxliili dhibaatooyinka ka dhashay dadka tagitaankooda qodobka koowaad waxaa ka dhashay albu'du can alahli walahbaabi walaqaarib inuu qofku ka fogaaday mataqaanaa ehelkiis saaxiibadii uu jeclaa iyo qaraabadiisii waa ka fogaaday qofku hayjaan kale iyo meel buu ka dhacay faqdu alixsaas bilistiqraar deganaan la'aan faqdigu waa waayid alixsaasna waa shucuur dareen bilistiqraarna waa deganaan inuusan qofku deganaantii uu waayayo oo uusan iska tamashlin karin waddan shisheeye sidaad doontid uma mari kartida la soco maxaa kaloo ka dhashay altakhalli can kathiir min almabaadi waalcaadaat in qofku uu ka takhalluso oo ka dhex baxo wax badan oo mabaadidiisii ka mid ah inuu diintiisi ku waayo way dhacdaa oo uu gaalada raaco waxaa dhacdaa fakar ahaan qaabkaad u fakaraysay inaad waddankan wax ka noqon doontid haddaad sii joogtid xaggaa markaa tagtid way kaa baxaysaa mabaadidaadii iyo riyooyinkaagii oo dhan ayaa qofka ka baxaya meesha markuu dal shisheeye tago bisad gacanta lagu hayo ayuu iska noqonayaa maskiina aan macno lahayn maxaa kaloo ka dhasha alixsaas bilgharaaba inuu dareemo qariibnimo inuu dareemo maxay qariibnimo alixsaas bilgharaaba inuu dareemo qariibnimo xawla xuluul alhijra waa maxay xalka loo hayaa dadka tegidooda wakaakbi kuma qabsan oo mataqaanaa wax kugu qasbi ma jiro marka xal kale ma la hayaa oo dadku ay kaga badbaadi karaan tegitaanka intaasoo dhibaato markii uu soo arkay talow xal kale ma loo hayaa oo tegitaan la'aana waa loo hayaa midda koowaad waxa weeye tawfiir furas camal lishabaab in loo sameeyo dhallinyarta shaqo in loo sameeyo shaqo abuur wax la yidhaha in la sameeyo oo ama iyaga ruuxooda ay samaystaan waxaynu aragnay kuwa jaamacada ka baxay laakiin fakarkooda iyo dadnimadooda ilaahay u barakeeyey waddankooda wax ka soo saaray xoogaa yaroo ariyu meel ku xaraystay xoogaa geelu meel ku xaraystay caanuu ka soo caano teelay 6 bilood gudahood imise ayuu faa'iiday wuxuu sameeyey meel yaroo beer ah muxuu ka soo saaray wuxuu sameeyey isaga ayaa kuwii kale marti u yihiin wax samayso si marti lagugu noqdo adigu aad dadka wax u samaysay marka qodobka koowaad waxa weeye in furas dhaqaale iyo mataqaanaa camal iyo shaqo loo sameeyo lishabaab alcaamiliin dhalinyarta shaqaynaysa oo shaqada ogol iyo walmukharajiin dadka jaamacadaha ka soo baxay oo aqoontoodu fiican tahay in la siiyo fursado shaqo la siiyo labo waxaad kaga badbaadi kartaa dhibaatooyinka tegitaanka fatxo amaakin lilistithmaar in loo sameeyo meelo wax ka soo galaan in loo furo dhalinyarta saddex tashjiicu shabaab in lagu dhiirogeliyo dhalinyarta cala almushaaraka la wadaagidda fi lumuuri siyaasiya arrimaha siyaasadeed ee dalka ilaa iyo heer madaxweyne inuu heli karo gaarina kalo markii fursaddu u siiso in lagu dhiirogeliyo dalkan cidi kaama leh adiga ayaa u bixisi biri ah marka inaad ku fakartid adiguna aad isku daydid laguna dhiirogeliyo dhalinyarta inay arrimaha siyaasadeed xafiisyadu u furan yihiin uu imaan karo duuna khawfin aw tahdiid isagoo wax cabsigeliya aysan jirin uu imaan karo ayaa magaranaysaa aynu u sheegaynaa taxqiiq mabda almusaawaat walcadl inaynu cadaaladda iyo sinaanshaha aynu ka shaqayno tadriibaat su'aalaan kaa weydiin karaa maxaad is leedahay sil bayna alkalimati wa tacriifiha almunaasib hore uma adan arag laguma samayn baan malaynayaa halkan ka baro tacriifka iyo kelmadda isku soo xir kelmaddan fiiri isku day inaad tacriifin kartid waa maxay kelmadahan si fiican ila fiiri erayada meesha kuugu qoran waa 5 eray baan filayaa al-iqtiraab jaddati ayeeyaday al-qaanuun maxaa la yiraahdaa al-hijra maxay tahay al-bii'a deegaan maxaa la dhahaa mid walba tacriifkiisa meeshuu ku qoran yahay labada ugu adag aan kaaga shaqeeyo inta kalena isku day erayga al-qaanuun waxaa lagu macnaynayaa meesha u hooseysa majmuucatun min alqawaacid allatii tunadimu suluuka afraadi almujtamac waa sharciga nidaamiya afraadda dadka magaranaysa nidaamiya gaariga sidaa u wadan lahayd waddadaad mari kartid
mataqaana qaabka wax u gadanaysid qaanuunka xadeeyo weeye ereyga kalena oo xoogaa isleeyahay waa ugu adag yahay albii'a waxaa ku macnaysaa almakaan alladii yaciishu wayaskun fiihi linsaan waa meesha la degan yahay oo dadku ku nool yihiin baa bii'a la odhanaya waxaan kaloo kaaga shaqeeyaa marka hijra soo garan maysid alintiqaal min makaanin ilaa aakhar aliqtiraab soo garan maysid aliqtiraab asafar ilaa khaariji lwatan waa inaad waddan ka baxdid qariibnimo dareentid weeyaan jaddatii ayeeyaday taa kaaga shaqayn mayo adiga ayaa raadsanay sil bayna alkalimatayn almutaraadifayn macan sidii hore waan ka soo bedelay casharkii hore tan waxaan ku weydiinayaa ereyga la macnaa mar kastoo aad aragtid hadhowdii sil bayna alkalimatayn almutaraadifayn hada mutaraadifayn labada erayo isku macnaha raadi alixsaas alshucuur alintiqaal الترحال انت كلام رادسو ابكا اجب عن الاسئله الثلاثيه سؤالها سي توسا uga shaqay ardayow waa jeceshaa inaa ku baashaashid su'aalaha tooska oo lagu weydiiyo arif alhijra thumma dhkur anwaacaha ii sheeg oo taariif hijra tagitaan noocyadeedana bayaami haye ma hiya asbaab alhijra غير الشرعيه waa maxay sababaha hijrada iyo tagitaanka ayna yadhab almuhaajiruna غير الشرعيين xagee aadaan كيف ترى في رأيك عملية التهريب سيدي بعض أركتا اكتب المشكلات التي تواجه المهاجرين في الخارج وامحي وحكقر مشكلة ذها أما لباتوينك انت أنكوصو الشيغي إيكو أنا أنوغو حد الشيغنا أدوغو قرانيسيد التي تواجه مشكلة ذها التي تواجه المهاجرين صوب بيكتا أما متقانا كنت مادة دادك تغي في الخارج ودنكا banaankiisa intaas ayaa ardaysaaka intaas ayaan casharka ku soo gaabiyay oo aan ku soo gabagabeeyay insha Allah waxaan jeclaanaa si wanaagsan u soo dhaweyseen una idin kooban yahay casharku waad mahadsantihiin shukran lakum